بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبرنامج كميدا برنامجيدي أي نوجه ليني بربارينتا يتلوينكا أن أجيدين والدينتا وحن ما أنت كسو قادنا سدح الريموت وعن سلية هاي آديات بي مهميهين أي تاينا نروحنا وسدح الريموت أو علمها شخصية ديسة أما قفنمة ديسة أما أهانشيهيسة لصية saddexda arrimood waa saddex arrimood oo barbaarineed ilmaha marka uu yar yahay u baahan in lagu tallaalo lagu beero lagu barbaariyo laga toosiyo lagu saxo waxaan soo qaadanayaa arrinta koowaad ee aasaaska u ah dhismaha ilmaha qofnimadiisa iyo shakhsiyadiisa arrinta koowaad walaalayaal waxa weeye in ilmaha maxaa la yiraahdaa loo ogolaado inuu dareenkiisa iyo doonitaankiisa iyo fikirkiisa uu cabsi la'aan u cabirto iyada oo la dhaleecaynaynin laga hor imanaynin wax laga sheegaynin la isku dayaynin in la saxo loo ogolaanaya bal horta qofka kan ilmahan yar waxa uu hibanayo waxa gudihiisa ku jira waxa dareenkiisa inuu cabiro haddii taa cagsigeeda walaalayaal ay timaado oo ilmaha aynu ku tarbiyadayno in aynu dareenkiisa iyo doonitaankiisa iyo wuxuu u diidayo aynu caburino waxaynu noqonaynaa bulsho hoos u wada jeeda oo hadhowto khaladaadka aan iska sixin oo hadhowto qof walba oo waalan durbaanka u wada tuma sida mashaakilka ugu badan hadda in haysta arrintaas waa fursad qaaliya walaalayaal ilmaha qof kasta oo ilmo yar haysta inuu u ogolaado ilmaha waa arrin rabbaani oo ilaahay ku abuuray inuu cabiro dareenkiisa iyo doonitaankiisa inaynu markaa walaalayaal aynu u ogolaano in ilmaha ka dhegaysto wanaagsan u noqono oo aynu u ogolaano inuu dareenkiisa iyo doonitaankiisa cabiro qodobka labaad walaalayaal waxa weeye ilmaha shakhsiyadiisa ama qofnimadiisa ama ahaanshihiisa dhisa waxa weeye in ilmaha yaraanta aynu ku barno in wax kasta oo uu qabsan karo oo baahidiisa aan loo qabanin waayo adigu haddaad waalid tahay noloshiisa oo dhan lama joogaysid uu kaa madax banaanaan qof buu noqonayaa isku tashta noolaada shaqaysta haddaanu awoodaynin oo aanu kusoo tarbiyadoobin in wax kasta oo uu qaban karo uu qabsan karo maxaa la yiraahdaa loo ogolaado inuu barto inuu qabto hadhowta waxay dhib kala kulmaysaa la noolaashihii bulshada la noolaashihii nolosha aad buu dhibaato kala kulmaya sidaa daraaddeed wax badan aynu isleenahay haddaynu waalid nahay weli hooyooyinka ilmaha wax ugu tara waa arrin ilmaha dhaawac weyn qofnimadiisa gaarsiinaysa oo ah in wax loo qabto ilmuhu markuu yar yahay saxanka wax ku cuno inuu qaado koobkiisa inuu qaado haddii uu awoodo inuu dhaqi karo in la yiraahdo dhaq haddii uu maxaa la yiraahdaa reerku qasaalad ama mashiinka wax dhaqa haysto in la yiraahdo ku rid wax kasta haddii la yiraahdo ilmaha dharkiisa inuu hagaajisan karo sariirtiisa hagaajisan karo uu diyaarsan karo wixii berri u baahnaa hawl kasta oo u baahan yahay inuu qabsado in maxaa la yiraahdaa la baro inuu qabto waxaadna ogaataa walaalayaal bini aadamku ma jecla qof isaga ku xidhan sidaa daraaddeed haddii ilmahaanu ku barbaarin inuu waxa baahidiisa qabsado hadhowta wuxuu noqonayaa qof cid kasta ay karaahiyeysato oo ma garanaysaa reer meeshuu ku nool yahay qof kasta oo xiriir nololeed dhex maro meesha uu ka shaqaynayo qof jecel in wax kasta loo qabto sidaa daraaddeed wuxuu noqonayaa qof dadku uu naco isna marka uu dareemo shakhsiyadiisa dhaawac weyn kasoo gaaro sidaa daraaddeed qodobka labaad muxuu yahay in ilmuhu yaraanta aynu ku barno in wax kasta oo qabsan karo uu qabto qodobka saddexaad walaalayaal waxa weeye in ilmaha mas-uuliyad yaraanta lagu saaro inaan maxaa la yiraahdaa in loo ogolaado in mas-uuliyad da'diisa la-eg la saaro in arrimaha qoyska laga qaybgeliyo in lagala tashto inaanu ilmuhu u noolaanin keliya cuntada la siiyo dhar loo iibsho aanu noqonin muxuu ahaa bombala yaroo guriga yaalla laakiin mas-uuliyadda nolosha loo diyaariyo